maamulka degmada Gabiley ayaa munaasabad sagootina u qabtay xulka kubadda cagta iyo baasidka kuwaas oo maanta u anbabaxay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. xafladani sagootinta ah ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada iyo ka gobolka Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley hogaamiyaasha dhaqanka ururada haweenka iyo ciyaartooyga u tartamaya Gabiley. waxaa halkaasi ka hadlay maayarka caasimadda gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo markii uu sare kacay shacabka oogsaday. وأنا مقدار الكرسي سويتي عياتويني كنتي بردار يو طلب ما تقول بتشوفنا وحيوه أنا هاي الفرحة ولا يقول دليلتين وجدت الإمام فوضلنا وحوي الكوب كقبلة هذا ككبر دونا أي كسر بوليسن ككوباوين الإسرائيلي ككسر بحلو كلابانوين الكوب كسر بعده هدف كيلولنا هاي ciyaartooy iyo macallimiin iyo guddi iyo maamul iyo dhammaan shacabka reer Gabiley ay ka siman yihiin waa hadafka weyn. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise iyo kabtanka xulka gobolka Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley iyo isuduwaha ciyaaraha gobolka Gabiley Saciid Saleebaan Muumin. anigu caadiga baahnay maayarka soo tolayo oo taageerayo maayar wanaagsan ah oo ku aamin kara shaqada maanta maayarku way joogaan وعلى ذلك موضوع إذا عملي لما أنت محل ما يكرهون كنت أروح في عمرو رياضي وأنا قاعد معك تقول فرحة ما كان عندك ولا صار كذا وشغلي معي بيسجل عندكم عليه مركز عمرو إلى يوم على كل هذا ورضوا بس عشانه وكا إلى يوم على ما تضيعني ما تضيعني دوت إن شاء الله وعن حاجة أبي دوم هذا اللي ما يكتبون اللي وروتي وشي هوس أنا كوكا سبورتي ها لما سيروا لقطة بيركو أنا واحد يعتقد واحدة طاهي وجري لكن هذا واحد لو بعدين هاي أو نقدر نقول بيركو هذا وحوي هذا قلت قف نستوى رجع بليو وقوة بينو تاجرو يأكلوا الغور وحنا ما يفعلوا بلد دنيا توقف عيو بلد دنيا إنه شركة كمان نصف شوي سائل نوع عام مختار نوح إبراهيم هون كيبل تي في قبل كجبل.